wadadan aad baa loogu baahnaa xagga boodhka ku yaala xawaalay baqiic wadooyinkan magaalada ka baxaya meel aan dadku ay ku badnayn aan aad loo deganayn marka wadadan waxa weeyaan wado aad iyo aad loogu baahnaa aad iyo aad asxaabta waxaan joognaa wadadii 200 marka waxaa la sameeyey wado cusub halkaas waxa weeyaan barigii weeyaan halkanna waa galbeedkii waxaa la sameeyey wado cusub oo tegaysa bacado marka wadada cusub waa tan halkan ay ka bilaabaysaa halkaana wado kalaasaa la sameeyey halkaa maraysa dhinaca u leexanaysa iyo cabaayey marka wadadan baynu eegi doonaa maanta wadadan aad baa loogu baahnaa xagga boodhka ku yaala xawaalay baqiic baa talo baqiic qaybtii labaad baqiic marka wadadan waxa weeye aad u muhiim tahay dadka tegaya xabaalaha iyo dadka halkan dhulka ku leh sidoo kale Jabuutina way tagtaa oo waa la maraa halkan dhinacana waa la maraa marka halkan buurtii waxay naga xigtaa Xundulgeel marka in badan bay bartaan u baahnayd xagana xaafaddu waxay naga xigtaa awadada bartaan naga xigtaa dhinacaas marka in badan bay halkan u baahnayd wado marka ilaa 1 kiiloomitir baa imika la sameeyey mise 2 kiiloomitir meelahaas aan ku qiyaasaya wayna socotaa baan filayaa shaqadaydu hore la wadayaa si dhinacan ay u noqoto mid la degan yahay imika tusaale ahaan oo kale wadooyin badan oo san oo kale ayaa magaalada Hargeysa laga hirgeliyey taasoo keenaysa in aniga ra'yigayga aad iyo aad u fiican tahay weliba mid maaha 2 maaha 3 maaha in la sameeyo boqolaal wadooyinkan magaalada ka baxaya meel aan dadku ay ku badnayn aan aad loo deganayn laga sameynayo waxay keenaysaa in uu dhulku uu jabo marka waxaa jirta in dhulka meelo gaar ah laga iibsado laakiin marka wadooyin badan la sameeyo jaanisadii laga iibsanayay dhulka meelihii laga iibsanayay ayaa kor u kacaya marka meeshii lagu ururiyay baa waxa weeyaan suuqii oo ballaaranaya marka taas waxay keenaysaa in dhulkii jaanis lagu helo oo jabo marka masha Allah wada aad iyo aad u qurux badan runtii halkan buurtii Xundulgeel baa naga dambaysa oo dad badan baa halkan degan dhinacyadan halkan imika waa la soo degi doonaa marka waxaa jirta laag halkaa marta laag weyn saa u marta laag weyn tooska u dhacdo marka laagtaasi markii hore may sii weyneyn imika biriishka dhinaciisa shishe birigii hore waa la mari jiray biriishka xagga idinka muuqda biriishka wakaa wadadii 200 birigii hore dhinaca shishe laga mari jiray oo iska meel caadi la mari kara ahayd laakiin imika wadadii marka la sameeyey biyihii bartaa ka imanayay xaafadahaas ee ka talaabi jiray biriishka ayaa saa soo noqday xaggaa mari lahaa ayaa xaggaa soo maray marka xaggaas waxay noqotay laag aad iyo aad u weyn biyihii kale xaggaa ka soo baxayayna xaggaan way soo mareen kuwii xaggaa u dhadhacayayna xaggaan oo soo dhadhaceen wadadii waxay kala xidhayba biyihii isku socodka biyaha oo waxay bedeshayba qaabkii biyuhu socdeen marka xogaa bay socon doonaa halkaa hore xaafado iyo masaajida iyo waxba ayaa ka dhisan marka wadadan waxa weeyaan wado aad iyo aad loogu baahnaa aad iyo aad imika halkaa hore oo kale dhulku aad buu u jabnaa
4,000 5,000 nuska 6,000 xagga waa yara qaali xagga hore marka kolley wax badan ku kordhi maayaan maadaama imika xaggaa wadda laga dhisay xaggaas dadka qaar ka iibsanaya xaggan dadka qaar baa ka iibsanaya gantaalaha waddooyin baa laga sameeyey oo xagga waqooyiga iyo xaggaa u kacaya xeedho marka janiskii dhulka laga iibsanaya imika waa wuu badan yahay jaban inaad heshid waxa weeyaan imika waxa weeyaan waa mid xaqiiq ah buurta waxaa loogu talagalay baan malaynaya in la dhameeyo gebigeedaba ayaa la balaagangelinaya baan malaynaya waa dhinac kastoo laga qoday dhinac kastaba caamud baa laga guray idinkuna ra'yigiina qaybta hoose ee commentiga insha allah waad igu soo qori doontaan waxay la tahay in waddooyin sidan oo kale ah oo waxaa la idhahaa daafaha magaalada ah outskirtska magaalada in laga dhiso siday ila tahay aniga waa idea wanaagsan amazing marka xaggana si wanaagsan baa waddada loo dhisay teedeeda maaha waddo caamiysi maaha in badan bay dhulka ka sareysaa ciid iyo waxaana maahay waa waddada waa la adkeeyey waa la qaraacay ilaa halkan baa la qaraacay ilaa halkan baa la adkeeyey ciidda ilaa halkaasay taallaa ciiddu dhinaca shishan oo saas kale weliba halkaa in waxaa la yidhi haddii biyo maraan oo kale dhinacaas oo kale ciid badan baa ka taalla waddo maaha maalmahan wax noqonaysa maaha waa waddo la adkeeyey meelaha la isleeyahay biyuhu waa ka tallaabaana sida caadada aba sagbad baa la dhigaa halkan oo kalea ka mid a waa idea wanaagsan weyaan xagga waa sagbad weyaan si ayna u go-een xaggaasay biyuhu ka soo baxayaan xaggan oo kale waa waddada hoos bay u degan tahay xaggaasay biyuhu marayaan marka xaggaana waxayna garab socdaa xaafaddii daroodho xagga guryaha ku yaalla dhirta idinka qaaranaysa meesha waa garowaha baa aada uga baxay oo buuxiyey marka waddada ilaa xagga hore waa la wadaa wadtaa laga shaqeynayo xaggaa hore ay taagan yihiin gawaadhidii kuwa xaggaa hore waa laga shaqeynayaa marka shaqaa weli ka socota ilaa geedka shishee arkaysaan mooyaan view qurux badan bay leedahay magaalada si fiican baa looga arkaa bartan buurtiina waxaan taaganahay dacalkeedii ama cirifkeedii waqooyi maasha allah kalley meeshan waxa weeyaan iminka maalin dhow way soo buxsanaysaa maayarka ha loo duceeyo maayarka waxaan leeyahay ilaahay madaxweyne nooga dhig saa uu waddooyinka u habeeyey wax u qabtay ayuu mashaariic beero waxbarasho caafimaad ayaan boqolkiiba boqol saasaan aaminsanahay inuu u sameynayo waddanka isagoon la ixtiraafinba inuu heer gaadhsiinayo ayaan ogahay moge marka intaana doorasho la gaadhinba in ciro lagu idhaha meesha iska eg weeyaan no ninkan baa u qalmee aniga waxba isku mid yihiin isma naqaano isma garanno waxaan bartay markuu maayar noqday intii horena waan arki jiray meelaha waan ka arki jiray social media laakiin waa nin wax qabanaya in la helo way adag tahay
dowladaha marmar buu soo maraa moogta. marka waan u ducaynaa ilaahay cimriga u dheereeyo. waxaa ummadda u qabtanaa ilaahay ka abaalmariyo. inta yar waa intii cashuurta dadka dowladda laga soo hagaajiyay laga soo guguray wixii lagu daray way iska yaryihiin. ninka waddanka saa loogu dhiibay ee dhaqaalaha waddanka oo dhaqaanta maasha allah. marka halkaa masaajid baa ka dhisan iyo xaafado xoogaaya. marka halkaa hore ay waddada ku joogtaa waxoogaa bay soo soconnay. waxaan rajaynayaa in aad ka hesheen fideoga. waddada horaa la wadayaa waan filayaa. hataa qalabkii lagu sameynayay halkaasuu yaalaa. maasha allah. asxaabta waa inoo iyo mar kale iyo muuqaal kale.